darajo kasta oo uu leeyahay mid dhaqan iyo mid xisbi iyo mid siyaasadeed iyo mid aqoon-yahan iyo mid culimo diin intaba waxaan idinku mahad celinaynaa sida sharafta iyo wanaagga leh waa jiibteen inaad qayb ka noqotaan oo ka soo qayb gashaan xafladda reerkan aynu dhisayno cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed iyo hodan nuur maxamed waaynu gurigooda halkan ku unkayno insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa bahdii saxaafadda meesha ka buuxdo waxaa ii muuqda 100 kameradood iyo 100 joornaal iyo 100 wariye iyo 100 qoraal fadhiyo laakiin labadaba anigu maanta waan ka tirsanahayo bahda saxaafaddana xubin baan ka ahay dhaqankana xubin baan ka ahay inankana maanta wakiil baan ka ahay waxaan u malaynayaa saxaafaddana dee qof iga daaweynaba ma fadhiyo halkan oo iyadana ka mid baan ahaan jiray
إن شاء الله تعالى دينعينا نقصو هرشيدا وحانو ويديسانينا ونصيح شمد لو غفرنا إنا نسيسان هذا نور محمد ونودونينو عبد الرحمن عبد الله محمد ونولنا هاي قلنا عبد الرحمن أسيا قبيلهانا دمانتها ينوصية بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة قيمها إيا غاية هبالي لبدا قرب هدي ربهم إياي هذا إيا عبد الرحمن حفلة دودي اسكوكو يمد وعنكو السلام يا هورتا مركا وهريسا سلام تا إسلامك السلام عليكم مركا حيقة هورتا النبي محمد حانا عنكو صلينو هذا نور محمد ودون إيسان عبد الرحمن عبد الله محمد قد يا قبيل بوان ويدسيني مهركنا وينو حقتونا إن شاء الله بسم الله بسم الله halkaasi waxa weeyaan waa 15 milyan waa xoolihii tolka ama waa gabaati ama waa Soomaaliya isugu yaqaano insha Allah ta'ala inta waxa noogu xiga waxaanu doonaynaa inaan noo raacisaan meherkii بسم الله الرحمن الرحيم واني شيغو وان دين راعناي انكو وقتيغي جوغا سن سغلوها بسم الله isaguna waa noo guddoon insha Allah ta'ala halkaasina waa 1500 oo waa yarad hortii de geelina uu dambeeyaa waxa la yiraahdaa xidis tusoo kala ta geelina uu soo socdaa waa reerkii geela lagu tumeeyay inta ka bacdi insha Allah ta'ala waxaan ku wareejin doonaa si ay inoogu xidho intii sharciga ahayd ee aqdiga Sheekh Xasan Aadan Umar inta uu meherkaasi inoo xidhmayna waynu yar aamusi doonaa insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله إن بارك الله فيكم حفلة قيمها يا قاية بدنا شرفت له مركو روان سلام يا سلامة إسلام كروانكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب تنوكل مركل تشوقه والله لا يلوح وين درفين والله بدرف وي والله بقيبوت قيد رقنا أو مقرني سو تشرينا diinteena oo ogoshahay oo isaamaxday oo magaranaysaa qaybta inoo dhamaataya in inanta la isiyo oo magaranaysaa nasiya idin siinani waa qaybta dhaqanka weeyaan sharafta la soo jireenka si wanaagsan bay inoo dhamaato sharaf leh waxay noo hadhay qaybtii diiniga ahayd ee aqdigii iyo magaranaysaa ujeedadii meesha loo yimid ee guurkii baa inoo hadhay barakallahu fiikum taas bayna gali doonaa marka hore waxa waajib inaynu ogaano meherka ama sadaaqa oo inanka ku waajiban intana waajiba in ay ogaana barakallahu fiikum marka inanku wuxuu sheegay inay ku heshiiyeen inanta ay ku heshiiyeen 150 gram oo dahab ah 150 xaga ma laga hayaa 150 gram oo dahab ayaa meherku noqonaya walaalayaal 150 gram dahab noqonaya dhamaan shuud baynanahay waa 150 gram oo dahab inta kadib waligii inanta ma jooga هذا كوكيلا ولكي واحد وكيل بافرديا وكيل هو شيخ وحويا شيخ اسماعيل دغو غرنيسان شيخ او ما غرنيسا ولاد هايستاي ولاد له هدو شيخ اسغو ما بهر بارك الله فيكم هدو شيخ لا سو وكيشو oo isaguna ma garanaysaa oo markaa isagu wakiilkeen halkii sheekhu ma ku jiro isaga wali isaga meerinaya inta kadib markaa waxaan ku wareejinayaa maadaama wakiil yahay sheekheynina uu yahay oo caqdi inoo xidhaya شيخ إسماعيل ديك وين وحده بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورنتي شيخ وين يقصور يجي ما هين ودمية هيد لكن مرة هذو ميكروفون كشيء تيسكع العلم منه. مهركو
وصدح قضب بروتوكول كاسوليه وين دي غوريه iyo guursada waa inay fadhiyaan laba waa in meher la cayino waa in markhaatiyaalna ay runtii joogaan waxay la tahay markhaatiyada labadooda ee waxay siiyay cuqaasha ah in qoran doona hadii alla yiraah laakiin majliska sharafta leh oo dhan ba markhaatiyaalka ah inaynu Cabdiraxmaan iyo Hoodan isu guurinayno marka intaas ay dhamaato caqdigu baa harayo shariicada islaamka waa ay guuri iyo ku guuri weeyaan waa intaas marka shariicada islaamka waxyaalaha ay culimadu isku khilaafeen waxa kamid ah luqatul mutaaqidayn labada qof ee wax kala guursanaya luqada isla fahmayaan dumarka lagu meheriyo amba reerka la isugu meheriyo waxyaalaha ay isku khilaafeen bay kamid tahay marka خطبة بالله أخريايو خطبة الحاجة للرسول عليه الصلاة والسلام وحكست أو مهمة مركو كهالله خطبة بكور رئيسين شري تعسل خطبة الحاجة طب الإسلام هو سني عن هاي مركا هذا في عربي أنكو آخر دورنا عقد يجون تنتي سنة وحن عبد الرحمن كعصنا يا مكان ينتهي مقعد الشيخ اللي هذا أيام كو جوريي أيوم بعد ذوان أقبله بس وعلى الإسلام أقبله ونسلو ذوقنا إنما الأعمال بالنيات بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق يا أيها الذين اتقوا الله الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاه إن الله أحل النكاح وحرم الصفاح وزوجك على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان خضن نور محمد أو ولاية قورين تيدا أبهدي وكيشي مهر كيدي هاي بقولي كنتم كرام أو ذهب أو دمدة أو نوع حدحاء أيام كو قوري ونقبلها الله يسبرك يو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير لبك المدود شريعة أو جورك أهدافتي أنا شيخ أن كعلين دونا سواء آدي أزماتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وعوين أردن ولا ليال عقد وين أردن يي شرف لا ينو واحد ماي سيدا بانا ما قرنا يساو جديدنا وانتهى ويان وإن أردن تيسير رئيسنا إنه أردن تهاي وحن في ليا ده تنو كله جوب شوك بيننا هذه الشيء على جور كستويني شوك كنا حفظنا ويا حبين نجوب بدينون شوكنا ولا ليال جور كنا حويان شيء فرلوي وشيء فرلا إن الجوريو إن تايم كنا عدا إسماعيل لك أخري وفرل بارك الله فيكم إنكم فضل الله أخري واسود يدين شيء وأقود بالحاجة وأيضا السنة لكن عقد جاء إن حنا وفرل نبينا عليه الصلاة والسلام جور كوا إنه جوابي أدب إنه جوابي مركا طلع يرهان مر أيوك جوابي وقال جوابي النبي عليه الصلاة والسلام وله ما قرنا يسا قف كي هيا قبال أما ما قرنا يسا جور كي يتال كي سهيا هجور سر دليل وله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة مرة النبي عليه الصلاة والسلام وحيدي جور سد بويد أنتوا قدوم رقار كم إذا تلمامي أيود جور سد أنا هو حريدين كفار دونا
ما قرنيسا فرها يوم ومضان يدكون فاني دونا يوم القيامة يوم القيامة سان يدكون فانو كور كبدية سيدنا شو بدر النبي عليه الصلاة والسلام ودود الولودة تضل بدن وشعل بدن كور سدا بمعنى واحد سيدنا شو بدرته وحال يدكون فاني يوم مضان يدكون فاني ياي مركا إن كور سدا وفرل ما قرنيسان مركا يقول إنك تنو كلو حكاها سوا odayaasha ama cuqaasha in laba iyo saddex iyo dabada xaska la geliyo ragaasa ka saawe hortu bal la guursado guurka hal badi barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way noo dhacday aynu u ducayno oo aynu u baritaano in lagu jiro Allah oga ducada reerkaasi cusub ee halkan aynu ku yeegnay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed iyo sidoo kale Hodan Nuur Maxamed oo iyaga laftooduna aynu halkan uga ducaynayno kale Cabdiraxmaan maanta dawaa uu ka baxay marxaladii wuxuu ku noqonayaa si lamida tii hooyanimo loo oran jiray ma cashaysay ma qadaysay wax ma cuntay dharkaad xidhantay maanta waxba ka yar balkaale koodhkan iska saaro shaarkan bixi kulli waan u suxufiyo dumaashadeeda cusubna waan la dardaarmaynaayo waxa laga yaabaa isagoo hawlo shaqo ku jira ama gurigii ku socda in lala soo hadlo dawaa heegan waan in askari iyo kale oo dalkii dadka u shaqeynaya marka ayaanay si kale warar dhow tolo waa iska yimaadaan marka shaqada la qabsanay ee la qabsato loo garto in dalkii dadkaba u shaqeynayo waqti kasta u jooga ee mas'uuliyiin kala duwan baa inala jooga hawlo shaqo ay leeyihiin waynu fasixi doonaa laakiin Cabdiraxmaan bahda suxufiyiinta ayuu ka tirsan yahay laba kalmadood ayaan siin doonaa bahwadaag fara badan oo mihnada saxaafadda ay ku midaysan yihiin oo guud ahaan baday qaarkoodna ay Hargeysa joogeen qaarkoodna ay gobolada uga yimaadeen sida ay uga qayb galaan meherka walaalkood waxa uu hadli doonaan halkan ugu yeedhi doonaa Xamse Cali Bulbul laba kalmadood oo dardaarana iyo waliba ducaa oo saaxiibkiya ayaa loo wakiishay Xamse soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waa maalin qaran وانا مالي وين وانا مالين دقن وانا مالين مسلمات مركا لaba qof oo muslimiin halkan isku imanayaan oo lagu meherinayo markii dhawaataan soo galay meherka ayaa saaxiibkii Badri Koosaar wuxuu igu wiri oo fariisalka abtiyaasha markaasaan ku leeyahay maanta waxaan matalayaa bada saxaafadda ka weyno halkaasaan fariisanaya waxaan u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani siyaasiyiinta Ismaaciil Buuba iyo gudoomiyaha koobaad ee Ucud iyo gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye odayaasha salaadiinta uqaasha waxaan ku leeyahay salaamiya abtayaashay lixle iyo ugaaska oo inaan leeyahay aad u mahadsantii Cabdiraxmaan fantastic iyo Hodan aad baan u hambaleynayaa ilaahay uu ka dhigo meel khayr qaba caruur fiican ay dhalaan Cabdiraxmaan shalay markuu ii sheegay uu yiri waan mehersanayaa ayaan ku yiri aad ka mehersanaysaa markaasuu yiri waxaan ka mehersanayaa lixle walaashi markaasaan ku warto ma habartii Hodan ba markaasuu haa markaasaan ku qoys fiican oo xadaarad leh oo weyn oo ilbaxa u degan ayaad ka mehersanaysaa waan ku hambaleynayaa waayo aniga hooyaday Saare Maxamed Maxamed Baane oo ah hooyo fiican oo soo korisayba reerka ka dhalatay marka waa qoys fiican oo dumar fiican leh Cabdiraxmaan waxaan ku balan qaadayaa in habayartay si fiican ku dhisi doonto adiguna aad dhisi doonto oo nolol doonto dhinaca kale Cabdiraxmaan isna waa nin ka soo jeeda qoys reerkiisa oo iyuna caana oo family weyn oo xadaarad leh isna inta la mid usna sameyn doona insha Allah waxaan rajeynayaa dhalinta kale saxaafadda ku jirta in sida guurka Cabdiraxmaan u fogeeyay meel kale uu la xididay oo la xidido anuguna bahdaas uma kamid insha Allah annagu fogaan doona uma tinti waxa uu kamid yahay dadkan sawirkii madalaha noocan iyo kala aan u imanay iyaga lafteedana mar kale ducada dub dhalinyaro badan oo meesha joogto oo aan guursan iyaga laftoodana waxaan filayaa labada reer un inay midkood la xidhiidhi doona haddii la yiraahdo mas'uuliyiinta inaga joogta asxaabta qaranka ayaan hadalka siin doonaa oo aan laba kalmadood oo kooban iyaga laftoodana aan markan waxaan ugu horeysiin doonaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee Ucid Cabdinaasir Maxamed Aadan Cabdinaasir soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما أنت إن سلامة اللي الرئيسية ويان عروسك يا عروسة مرلبات واحد سلام يا قدوميها حزبك معارض كوضني قدوميها قولها دحى حزبك محافظ ككلمية سياسي بوبا يو سياسي عبد الله ذهب أو يسوون هالكافردية رنهانتي ومدل دقن maadaama dhaqan ay tahay waxaan u sara kacanay inaanu hambalyeeyno axsaabta iyo saxaafadana wada shaqayn baa ka dhaxaysa markaan oo ku hadlaya afka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid injineer Faysal Cali Xuseen oo saaka hawlo shaqo dartood u iman kari waayay
waanu idin hambalyeynayna waxaan ugu ducaynaynaa ducadii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير run ahaantii odayaasha dhaqankuna aad buu mahadsan yihiin haddii cidi caqdi kuu gunti lahaydna run ahaantii waxaa maanta nasiibad u yeelateen cabdiraxmaan fantastic iyo hodan sheekh ismaaciil dheeg oo run ahaantii mashaayikhdeena waaweyn ah aynu ku faanno in ilaahay subxaanahu watacaala caqdiga uu guntayna midkii ay ka dhalato wiilal badan iyo gabdho badan iyo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee dalka iyo diintoodaba anfacay inuu ilaahay ka dhigo وجزاكم الله خير إلى هيد دعاء إني أقبل فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أبو ناصر المركن وعن هذا الكسين دونا قدوميها قلها دحية حزب محافظ كلمية جامع الشبيل جامع سودو. الرحيم بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما أتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضحية من جوال السلام يا مضشر waxaan uga ducaynayaa caruuska cabdiraxmaan iyo hodan inuu ilaahay guurkooda ka yeelo kii lagu banaano lagu barwaaqoobo dalkooda dadkooda diintooda intaba anfaca reerkii nagaada buuqiisu yaraado hadalkiisa aan dibadda laga maqal inuu ilaahay ka dhigo kuwii isku barwaaqoobay inuu alla ka dhigaan ugu ducaynayaa waxaan u joognaa madashan waa duco waxa la ilaahay idin barakeey بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير gudoomiyu isagu waa inoo xidhi doonaa maadoo yahay mas'uulka ugu sareeya inagala jooga waxaan markan hadalka siin doonaa ugaas Cabdullaahi Xaaji Xawaareeye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد له ujeedadii halkan la isugu yimid waxa dhameeyay culimadii annagu waxa kaliya annaga khuseeya ama ay tahay waxa weeyaan inaan u ducayno labada dhalinyarada ee iskuursaday ilaahay idinka waxaanu baryaynaa inay noqdaan kuwa isku banaadha isku reeya khayr iyo bashbash ku dambeeya inteena halkan isugu timid ee xafladda ka soo qayb gashayna ilaahay waxaanu baryaynaa inuu dembigeena ku dhaafo oo inoogu dembi dhaafo raxmaadka inoo curtayna ilaahay idinkii waxaanu baryaynaa inuu mid ballaaran oo khayr leh oo bashbash iyo nimco aynu kala kulanno inuu ilaahay naga siiyo kaftanka wixii kaftana mala cuqaashiya waa odhan doona laakiin anigu xagga reerkan inaan ka soo jeestayahay waayo aniguna anigoo dee insaa dhalinyara reerkaasaan ahay oon ka soo jeedaa carruurtayda dhalay carruurtayda ku guursatay markaa qudhaydu xaggaa inaan ka soo jeesta malaa wanaagsanayd geelii lagu ballan qaaday dee geeli weynagan imanka seetaynay waabuu seetaysan yahay markaa kolleyba geel iyo wixii lasoo dhaafin jirayba way iman doonaan oo ilaahay idinka waynu ku ducaynaynaa intaasaan kaga baxayaa ilaahay idinka waxaan ka baryayaa inuu ubadkaa iskuursadii bashbash iyo barwaaqo iyo nimco iyo caafimaad ay ku dambeeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaama marti sharaf badan iyo weliba mudan badan ay joogaan oo inaan wada gaari karin dhammaantood hadalka ugu dambeeya inta aanan gelin waxaan laba kelmadood isagana siin doonaa boqor raabi oo isaguna inala jooga bismillaah madashu aad iyo aad bay u mahadsan tahay ciddii soo abaabushay iyo dadka isugu yimid magac kastoo ay sitaan aad baan u salaamayaa ilaahay baa mahad leh mahadda labaadna waxaan u jeedinayaa madashan wanaagsan ee la isugu yimi inanka iyo inantana waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqan u rajaynayaa waabay yihiinoo roobkii bay la curteene waxaan rajaynayaa in ilaahay sidaa ugu waaro caafimaadna ku siiyo intaa markaan dhaafo waxa weeye dee labada reer awalba isku mid bay ahaayeen guurkoodu weliba wuxuu ahaa guur xiisa leh oo guurarka ugu xiisaa badan bay ahaayeen reeruyo waa dad isyaqaana haddii lagu soo celiyey maantana waxaan leeyahay miidiyaha waxaa ku jira had iyo jeeraale aan ismaqallo
media waxa ku jira waa yar kaftamayaa hees baa jirta ay qolada media hadda soo saareenoo dadka la yidhaahdo wixii la dhageysanayo dhan waa heesta ugu dhageysiga badan leh micnaheedan dhuuxo waxay noqotay barbar waxaan idin leeyahay dee wixii wanaagsan barbar un bay u dhici bay ila tahay waad istaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay boqorku aad buu u mahadsan yahay intaanu guddoomiyihii inoo xidhin laba kelmadood oo mahadnaqa inta madasha ka soo qayb gashay ayaan siin doonaa caaqil rashiid maxamed jaambiir badan baa laga yar hadlayoo dee boqorkii baa barbar u dhacay waxaan sitiro anigu markaa majeegadaan u dhacaa bismi illaahi raxmaan raxiim horta mikrofoonka saddex kelmadood baa igu soo celiyey mid xaq baan u lahaayo wakiil baan caruuska ka ahaayo inaan dadkoo dhan markii hore aan u mahad celiyay mar labaad baan u mahad celinayaa laba qodob baa igu soo celiyey labadaa qodob baa igu soo celiyey mid waxa weeyaan xamse cali bulbul xamse hodan buu wuxuu u bushaareeyey cabdilaahi fantastic wuxuu yidhi reer xadaarad leh oo ilbaxa oo aniganay dhalay oo asala oo wanaagsan baa nasiibka kugu beegay markaa bushaare weyn buu cabdilaahi u sheegay dee aniguna haddaba hodan baan u bushaaraynayaa aniguna hodan ayaan u bushaaraynayaa hodanay suldaan baa ku guursaday suldaankii guud baa ku guursaday ma bushaare ka weyn baa garanaysaan dee bushaare ka weyni ma jirto hodana intaasaan ugu bushaaraynayaa waxa labaad oo igu soo celiyey kaarku xalayto goor dambe oo fiidkii ay keenayoo safar baan ku maqnaayo shalay baan magaalada soo galay dabadeedna wuxuu ii keenay xalay kaarka oo anigoo sira jooga buu ii dhiibay oo xataa kumaan odhan waariyaad ka guursanaysaa walle maan haleyn inaan weydiiyo laakiin saaka markaan imi ee aan soo galay anigu dee ninkii hargeysaa baan hoo ninkii ugu horreeyey islaamay oo ina jaamac ahaa meelaha uu fadhiyaa baan filayaa ayaa markaan isha ku dhuftay baan gartay ciddii dee aan inanta uga fadhiisanayay mar labaad waxay sii xiise geliyey oo mikrofonkaba igu soo celiyey inantaa waxay noqotay inaabtiday laba goor bay inaabtiday noqotay mar lixday walaala noqdeen oo markaa meesha kamaan filaynba saaxiibkay walow iga yar weynaa saaxiibkay ahaa oo isku ciyaal ahaynoo weliba xilligii dhallinyaradiina aanu isku ahayn majlis ayaa dee inantii ay walaal noqdeen marna waaba inaabtiday markaana seedibaad iyo too inaabtiday baad qabtaa la soco yay kuu dhuumaninoo ninka ku imanaya waa aniga hadday arrin xumaado insha allahu tacaala waanu ducaynaynaa waxaan idinka wada mahad celinayaa sida fiican uga soo qayb gasheen xafladaas wanaagsan ee qiimaha badan waan idin ducaynayaa waa idin mahad celinaynaa inankaa iyo inantaana waxaan leeyahay allah isu barakeeyo allah isku baraareeyo ubadka iyo arsaaqda iyo adduunka iyo arrinka iyo diinta midna alla kuma celiyo allah u waasiciyo allah u barakeeyo iyagana allah isu barakeeyo sidaa uu ugaas xawaaraya sheegayna waa guurkii hore la soo celiyo dee hargeysa labadan xaafadood aad bay isu guursan jireen oo xidid bay ahaayeen ka hareerahana hala badiyo oo hargeysana yaan lagu ekaana waa raleegsi koriyo bahalkana ilaa saylaciyaa wada hala wado xaggana ilaa baran iyo dhahar hala wado aroos guurka hala fogayo markaasuu qiimo yeelanaya macna yeelanaya wanaagsanaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu badsan yahay caaqilku dhalinyaro badanna dee waa la dardaarmay oo waa kaa guurka ugu bushaareeyey ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cir dhammaan salaadiinta iyo boqorada oqaasha iyo madaxda dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo marti sharafka iyo saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badani halkan ma yaallo waa munaasabad dhaqan waxaan u ducaynayaa caruuska iyo caruusadda cabdiraxmaan iyo hodan baaraka allaahu lakum وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير إلهي وحنا قبري إن قيسك إنه نقولي إنه قيسك بركوب كردجو وبض خير غوانا كلاستيو ووالد كود دين تود يدل كود وانفعه لما مرت شرفتنا ومهنغيا السلام عليكم المون أديبونا موهاي كلابذكم المرا
تضلبته سيجاجنا تبابوشه يجيها كتعبته هبلو تمرتين مش حرات تلتلي سوتاجاو هلوت معاوة إيو انتي تضوبات كنتهاي انتي تضوبات كنتهاي ترمون أذيقنا موهاي تلابضكم المرا وقوات تضلبته سيجاجنا تبابوشه يجيها كتعبته هبلو تمرتين مش حرات تلتلي وبقاو هلوت معاوة إيو انتي تضوبات كنتهاي انتي تضوبات كنتهاي خضروا وتعبتيو برارهات كتاميسيو توفاحي دون هشي كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا لا تحقالي تيركا أحدقا خضروا وتعبتيو برارهات كتاميسيو توفاحي دون هشي كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا لا تحقالي تيركا أحدقا خضروا وتعبتيو برارهات كتاميسيو توفاحي دون هشي كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا كتالي هرمرين تقويس تحقالي تيركا أحدقا تيركا أحدقا على تيركا أحدقا لما يخون بسمارتي كالقع الأبوجي يا خاتم بيتيو نولا شيء اسكو عميني لما يخون بسمارتي كالقع الأبوجي يا خاتم بيتيو نولا شيء اسكو عميني يمكن وعن بايس وكين الكودو ولا تدريني ودبكي ستاجي يمكن وعن بايس وكين الكودو ولا تدريني ودبكي ستاجي علاسكا بحيان وأقل قلكيني علاسكا بحيان وأقل قلكيني وأفورا شعينكو يسوديبا وبح يسوديبا علاسكا بحيان وأقل قلكيني علاسكا بحيان وأقل قلكيني وأفورا شعينكو يسوديبا وبح يسوديبا وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو برقوركو هشيسا بلانتي كدبايسي وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو
barbargurku heshiisa ballantii ka dhabaysay waa mataana boobay ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday bixin doona caleemo waa mataana boobay ubax weeye la beeray jacayl weeye bislaaday bixin doona caleemo basaasiinka lagiisa ilaahow ka badbaadi ubax baariyoosan allaheena ka beero basaasiinka lagiisa ilaahow ka badbaadi ubax baariyo inaad isudacatihiin inaad dad xariiro dafiicanaatihiin daliilkeeda jire allow sida uliyadiin inaad isudacatihiin inaad dad xariiro dafiicanaatihiin daliilkeeda jire allow sida uliyadiin dhaxdooda waxtii qadiyo danqaaraba yaana iman awlaad ay daadahshaan raxmaanow deeqosi danqaaraba yaana iman awlaad ay daadahshaan raxmaanow deeqosi haddii adadab gasheen damashadiyo ciyaan dartiin baa loo tumee allow gurigiinna daa dartiin baa loo tumaye allow gurigiinna daa haddii adadab gasheen damashadiyo ciyaan dartiin baa loo tumee allow gurigiinna daa dartiin baa loo tumaye allow gurigiinna daa haddii adadab gasheen damashadiyo ciyaar dartiin baa loo tumaye allow gurigiinna daa dartiin baa loo tumaye allow
dul heshe katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga katali horumarinta qoys tixgali tiirka axdiga la tixgali tiirka axdiga